Hay'adda IZA ayaa soo gabagabaysay tababar lagu baranayo arrimaha doorashooyinka iyo xuquuqda dadka naafada. Qaar ka mid ah dadkii naafada ee ka soo qaybgalay tababarkan ayaa waxay sheegeen in ay ka barteen tababarkan xaq ay u leeyihiin in ay wax doortaan lana dooran karo. Tababarkan ayaa ku soo aaday xilli ay magaalada Kalkaci ka jirto ololaha doorashada dowladda hoose. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay tababarkan ayaa waxa ay codsadeen in la joogteeyo tababarada noocan oo kale ah. annagu waxaan soo qornay xisbi ahaan markii lagu jiro inay gacantaag tahay doorashada iyo inay tahay qarsoodi sanduuq tahay doorashada markii lagu jiro waxaa la samaynayaa dhammaan markii doorashada la fariisto xisbiga loo kala fariisto xisbiga qof u sharaxan sanduuq baan ka soo dhignay qofka markuu meeshaan galo oo qolkaan galo qof oo rabo soo xiriir u yahay oo daneeyo soo qoraya markuu soo qorana sanduuq ku soo ridaya hadii codka markii la tariyana xisbi nasiib u galo ayaa ku soo baxaya waxyaalahan ka faa'iidnay waxa kamid ah labada maalmood inaan ku baranay casharro ku xiriira xuquuqda anaga iyo xuquuqda naafada waxaan ka faa'iidnay inaan leenahay xuquuqo badan waxaan sidoo kale faa'iidnay inaan doorashooyin ka qayb gali karno inaan anagana la dooran karo anagana dadka aan dooran karno kaliya waxaan naafaa qofka maskaxdiisa luntay dowladda Soomaaliya ka codsanayna in doorashooyinka aan ka qayb galno 100%. anagu waxaan ka mid nahay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dabaqadaha ay ka sinan yihiin baan ka sinanahay sida ay u nool yihiin baan u noolnahay qolooyinka xuquuqul insaankana waxaan ka codsanaynaa sodonkaas inay noo kala saaraan oo haddaan wax ku leenahay inay cadeeyaan haddaan wax ku lahayn ay yiraahdaan ama gamba qaada ama ka percentage-ka hadda dumarka baa loo ogolaaday waxaan codsanaynaa sharciyaasha Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya inay percentage-ka aan leenahay ma sodonka dumarka ka tirsanayo aan la leenahay mise xuquuq gooni oo naafada ay leedahay baan iyo leenahay runtii casharada aan idin keenane oo ku saabsanaa dadka baahiyaha gaarka qaba iyo cashar kale oo doorashada habka ay ugu shaqeynayaan runtii waa aad ugu muhiim tahay waxa kale oo jirta hadda baarlamaanka gali kartaan waxa gali kartiin midka golaha deegaanka gali kartiin waxyaalo badan oo idin fudud jiro waana hadda waa aragteen waa idinkoo kale dad la mid yahay jiro madaxweyne weey waxaan leeyahay Hirshabeelle waa xuquuqdii naafada horumaray gaarsiiyeen baan leeyahay maadaama ay madaxweyne u doorteen waxaan leeyahay idinkuna ha ka gaabinina waxbarashadan ay ciirin qof wax yaqaan wax cili kara malaha horay way isku doorteen doorasho way yaqaaneen dhaxdooda iska doortaan doorashooyinka degmooyinka wax ku leeyihiin haddana doorashooyinkan cusub waxa rajaynaynaa inaad casharo badan ka hesheen oo ka qayb qaadataan doorkiina ka qaadataan martii in cidna uga noqon ururka naafadu wuxuu u baahan yahay mashaariic inta ka badan